mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya dalka Pakistan ayaa waxa ay si weyn u ammaaneen xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Pakistan iyo Soomaaliya xilli si rasmi ah loo furay qunsuliyadda Soomaaliya ee magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Karachi oo lagu magacaabo Durraan Xasan ayaa warkan inoo soo diray. xaflad lagu maamuusay furitaanka qunsuliyadda Soomaaliya ee magaalada Karachi ayaa ka dhacday magaalada Karachi ee dalka Pakistan. safiiradda Soomaaliya u fadhida Pakistan Marwa Khadija Maxamed Al-Makhzumi ayaa furtay qunsuliyadda waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday dawladda Pakistan una ka mid ahaa wasiirka cuntada mudane Nasaar Maxamed xubno ka socday wasaaradda ganacsiga ee dalka Pakistan iyadoo sidoo kale ay ka soo qayb galeen safiiro iyo safiiro ku-xigeenno ka kala socday 21 dal oo adduunka. xafladan oo socotay qadar saacada ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qunsul sharafeedka cusub ee qunsuliyadda Soomaaliya ee magaalada Karachi mudane Sayfur Rahman oo ah nin dhalinyaro ah oo u dhashay Pakistan ahna nin aqoon dheer u leh dhanka siyaasadda. furitaanka xafladan ayaa lagu aadiyay sanad guurada 57 ee xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan waxaana mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ku dheeraadeen muhiimadda xiriirka soo jireenka ee Soomaaliya iyo Pakistan. furitaanka qunsuliyaddan waxaa soo dhaweeyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Pakistan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Karachi kuwaasoo sheegay in qunsuliyaddu dabooli doonto baahiyahooda ku aadan waxyaabaha ay u baahan yihiin iyagoo sheegay in markii hore ay khasab ku ahayd in ay u safraan Islamabad balse taas hadda laga kaaftoomay maadaama oo qunsuliyadda la furay. intii ay socotay xafladdu ayaa ka soo qaybgalayaashu daawadeen fiidiyoyo maqal iyo muuqaal oo ka hadlayay quruxda iyo kheyraadka dalka Soomaaliya. safaaradda Soomaaliya ee Pakistan ayaa wada qorshe ay ku doonayso inay sare ugu qaado xiriirka Pakistan iyo Soomaaliya iyadoo Pakistan sheegtay inay mar walba soo dhaweynayso xiriir xooggan oo ay la yeelato Soomaaliya. dadweyne badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool Pakistan waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan inay Pakistan u aqoonsan yihiin wadankoodii labaad taasoo ay uga jeedaan sida wanaagsan ee dadka iyo dalka reer Pakistan ay mar walba u soo dhaweeyaan dadka Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaa hadda si toos ah u shaqeynaya qunsuliyaddii Soomaaliya ay ku lahayd magaalada Karachi waxaana dad badan oo Soomaaliyeed ka rajo qabaan inay xallin doonto caqabadaha soo wajaha. Durraan Xasan, Karachi.